يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله. marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo suurto galiyay kulankeenan inuu inoo suurto galo in halkan isku imaadno. waxaan salaamayaa agaasimaha guud ee gudoomiye ku-xigeenka gobolka, saraakiisha iyo howlwadeennada kastamka iyo maamulkooda, culimada Sheekh Mustafa iyo Sheekh Cali Masaajid. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. ujeedada agaasimaha ayaa inoo faahfaahin doona, agaasimaha guudan kusoo dhaweyn doono. anigu ka agaasimay xiriir dadweyne ahaan marka aanu cashuur bixiyaasha la joognana fariin baanu la wadaagnaa oo anagoo waajibaadkayga gudanayna iyo mandatekayga waaxda waxaan nahnaa yani cashuurta bixiya. markaanu saraakiisha iyo howlwadeennada dakhliga la joognana waxaanu nahnaa cashuur bixiyaha u dhibirsanaada oo si dabacsan. waxaynu maraynaa waxaa loo dabaaldegi doonaa meydan 30 guuradii aasaaska Somaliland. waad garan kartaan haddana qaldanayn kastamka berbero ugu horeeyay kastamada waxaa la aasaasay 1900 iyo dib loo yagleelay aasaasimaad dib loo yagleelay 93 27 sannadood ayaynu hawsha soo wadnay. waa xilligii aynu wax badan bedeli lahayn. adduunyadu waxay u socotaa si uu u hoggaansamo cashuur bixiyuhu. jujuubkii waa la iska dhaafay. waa in customer carinka ama daryeelka macaamiilkana kor loo qaado, wax la baro, allahumma musta'an akhlaaqda iyo asluubta howlwadeenka cashuur qaadaha ana la toosiyo si image ama sumcadda hay'adda dakhliga ama hay'adda wasaaradda maaliyadda si ay indhaha shacabka macnaha loo tuso aragti fiican iyo akhlaaq fiican si ay taa markaa u suurto gasho inuu dakhligu uu kor u kaco. markaanu fariintayda waan gudbinaya, waxaan idin leeyahay aynu u dhibarsanaano, aynu si xadaarad iyo farsamo iyo aqoon fiican ay ku dheehan tahay aynu ula macaamilo macmiilkeena oo ah cashuur bixiyaha, waana ah ka shidaalka qaranku uu ku shaqeeyo waa ka bixiya. barasho wanaagsan, sharaf iyo karaamo ii tahay inaan hortiina idin soo taago. rag badan oo senior ah in badan ka soo shaqeynaya kastamka